ciidamada qaranka Soomaaliland ayaa waxa ay gacanta ku soo dhigeen 12 harimacad oo si sharci darro ah looga dhoofinayay xeebaha galbeedka Soomaaliland waxaana wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ku wareejiyay 12 kaasi harimacad 9 kamid ah oo nolol ahaan ay ugu wareejiyeen wasaaradda deegaanka halka 3 kalena ay baqtiyeen kaashaale Maxamed Axmed Salebaan oo ah taliyihii hogaaminayay hawlgalkaasi lagu soo qabtay 12 kaasi harimacad agaasimaha waaxda duurjoogta ee wasaaradda deegaanka Cabdinaasir Xuseen iyo waliba wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta Soomaaliland Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare oo dhamaantood halkaasi ka hadlay ayaa waxa kamid ah hadaladoodii harimacadda qaabka loo qabtay meel ay dhahdo in hayaabli garo oo ka hoos saceel helay ayay galiyeen niman shicib u direen oo ilaalinayay lacag bay siiyeen nimankii shicibka waa la qabtay ciidankii baa qabtay hadaan kugu xidhaynaa baa leeyahay hadaan nageeni marka uu kaxeeyo geeyay meesha waxa markii ay galeen halkii ay ganactaa galeen banaan yar bay u baxeen banaankii markay dhaafeen nimankii bay galeen nimankii way yaaceen garanwaagii saasay kala seexiyeen garanwaagii saasay kala seexiyeen soo yaacay waxay wasaaraddu gacanta ku haysaa oo ay la tacaalaysaa 30 hareemacad oo sifo sharci darraan ku qaban iyo 9 kan 3 baa dhintay iyo 9 kan imika 9 iyo 30 kaas ayay wasaaradda deegaanku la tacaalaysaa waxaan doonaynaa ummadda inaan u bayaamino ciidanka qaranku waxa weeye baalasha ay ku duusho wasaaradda deegaanka horumarinta reer miyiga la'aantooda waxa ma qaban karo waxa weeye hore maaha missionkii ugu horeeyay fuliyaan hore waxay u soo qabteen iyaga iyo ciidanka ilaalada xeebaha iskaashanaya 9 mid mar bay soo qabteen runtii isku xilqaamay siday u soo qaban lahaayeen tuugta xadka goyska ee aanu qaatiga ka taaganahay ee maanta aad arkaysaan inay keeneen harimacad wada dhala ay soo gureen harimacadkana soo gaaray ee taliyay ay keeneen ciidanka militariga iyadoo uu xalay nala soo hadlay taliyaha ciidanka qaranka nuxtaani nala soo hadlay uu noo sheegay waa idinka maanta arkaya 3 way dhinteen 9 iyagoo sakaraada la keenay waxaan anu imka la yaabanahay markaan soo xidhnana waa la sii deynay ragga marka la soo qabtay sidaas oo kale rag muwaadiniina oo dareyska u sita muwaadinimo ay soo qabtaan halka keenaan ee maxkamaddu ay ku dhacdana waa la sii deynay ragga maanta ganacsigan aan lagu soo qabtay waa raggii horeba xukunku ugu dhacay ee loo xiray weey maantana waa arkaysaa waxaan bulshada Soomaaliland aan u sheegaynaa inaanaydan u naxariisan dadka ninka muwaadinka ee maanta gaariga agshaal ku soo shubay ee 4 koona cararay ee inta militariga siday ee marba koona ula cararayay ee baaburtu leys eryanayay nin shicib buu ahaa isagana waa loo hanjabay xagaad gali baa lagu yiri laba rag kibrayay waxay ku yiraahdeen xagaad gali doonta waa markii labaad ee imka ciidankani noo keenaan waa inamadii markii hore noo keenaan imkana sida waxaana laga keenayaa waa ilaa Lughaya ilaa Cabdigeedi ilaa Jiida weeye ilaa Jiida laga dhoofiyo weeye waxa weeyaan markay kontarooladan marayaan ay hoos u daadegayaan ay sii socdaan hadaan la baadhin si wanaagsan loo baadhin oo booliisku baadhin oo meelaha aynu dhiganay checkpointyada ama aynu xariga laga sii deynay aan la baadhin ma shaqeynayso